gaarigaaga maanta haddii aad rabto inaad gurigaaga ka kaxaysid wuxuu u baahan yahay shidaal uu ku dhaqaaqo. Haddii ay ka dhaadhacsan tahay adoo gaajo ku hayso yaad awoodi karaysaa inaad miisaan iska rido. Maanta waxaan rabaa wax badan oo lagugu soo shubay inaan kaa daadiyo. Waxaan rabaa inaan ku dhaho adoo cunto ka dheragtay oo jirkaagana awood uu leeyahay keliya ay kuu fududaan kartaa inaad miisaanka iska rido. Ogow miisaanka keliya wuxuu dhici karaa jirka marka uu tamar iyo energy uu haysto, energygaas iyo tamartaasna uu isticmaali karaayo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada channelka. Maanta waxaan ka hadlaynaa sida ugu fudud aad metabolismkaaga ama dheefshiidkaaga aad sare ugu soo qaadi karto adigoo cuntada aad rabtid cunaysid welina jirkaaga faadka ku jiro gubaya. Dabcan waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysid suurtagal miya? Yes, waa suurtagal. Maanta waxaan kula gelayaa safar dabcan aan anigu soo qaaday clientayga inta badanna aan ku dhaqo. Safarkaas oo ah bedelka hadda aad gaajada isku dishid in aan ku tusiyo cuntooyin aad cuni karto aad isticmaali karto calooshaada oo buuxdana still faadka yar ee ku dhibaya 5 kiilo 10 kiilo 15 kiilo aad ku daadin karayso. Qodobka ugu horeeyana horta intaan wax kala tagin maskaxdaada exercise-ka ama jimicsiga wax ay ka aaminsan tahay aan isku dayna inaan wax ka bedelno. Marka hore exercise-ku ma ahan wado ama wax loo isticmaalo in calories ama jirkaaga energy ku jiro looga gubo. Dabcan wax badan ee aniga kula hadlay iga dhaadhacsanaan jirtay in exercise tiro badan la sameeyo cunto yarna la cuno in ay taa wadada kaliya sahli karto qofku inuu miisaan ku ridi karaayo. Taasna waxay keentay in miisaankayga ama clientiga aan u isticmaalay miisaankoodu uu meesha uu taagan yahay uu dhaafi waayo. Bal waxaan ka doorbiday hadda inaan isku dayo inaan murqahayga dhiso, inaan isku dayo qof walba oo aan caawinayo inaan murqahooda dhiso, taasoo keentay in metabolismkooda uu kor u soo kaco maadaama high muscles ee jirkooda uu yahay. Sidoo kaleetana ay bilaabatay muscladu in ay ka caawiyaan jirka in uu faadka loos gareeyo. Qodobka labaadna waxaan focus gareynaynaa resistance trainingka. Resistance trainingka ama aalamiitooyinkan awoodda u baahan ama biraha lagu aalamiiteeyo waa furaha. Waxaad ogaataa mar walbo uu jirkaaga muruq dhiso jirkaaga wuxuu u baahanaa more calories ama energy ziyaada ah si uu muruqaas u xakameeyo. Tan waxay ku tusinaysaa still cunto fiican aad cunaysaa at the same time na calories uu jirkaaga gooyaa. Hal mid xasuuso progressive overload-ku waa waxa aad kaliya u baahan tahay. Dabcan progressive overload-ka dhowr maraan ka soo hadalnay waana sharaxnay waa un awoodda aad isticmaalaysid maalinba maalinta ka dambaysa inay kor u kici karayso. tusaale ahaan kaliya qasab ma ahan inaad intaad jiimka tagto biro culus oo aadan awoodi kareynin aad qaadid. Kaliya waxa loo baahan yahay waxa waaye in aad effortka awoodda aad isticmaalaysid inaad mar walba kor u qaado jirkana challenge aad gelin karayso. Tusaale ahaan xawada sameynaysaa haddii aad 100 kiilo xabadkaas aad ka qaado oo 100 kiilo 5 ilaa 6 reeb aad ka sameyso waxay la mid tahay 50 kiilo oo aad 15 reeb ilaa 20 reeb aad ka sameysay. Isku day inaad progressive overload sameyso haddaad u baahan tahay. Haddaad awoodid weight-ka inaad kor u qaado nice and lovely way okay wax dhiba ma lahan. Haddaadan awoodi karin reebka ha noqdo waxa aad xawaaraha gelinaysid korna aad geynaysid. Masoladaadana mar walbo ha dareemaan in wax un resistance ah uu ku socdo ama iska caabin. Qodobka saddexaad haddaa aragtid inuu miisaanka ka dhaqaaqaynin ama haddaa aragtid inuu jirkaaga wax miisaan ah rideenin waxaa jira wax la dhaho reverse dieting. Isku day dietkaaga inaad gadaal u celiso. Dabcan reverse-ka waa taqaanin gaariga marka gadaal loo celinayo. Isku day dietkaaga inaad gadaal u celiso. Tan waxay qosaysaa qof walba oo hadda yaqaano dietkiisa iyo calorie uu isticmaalay. Tusaale ahaan haddii aad 1000 calories isticmaalaysid aad ku istiigaraysay aadna arkaysid inuusan dhaqaaqaynin miisaanku meelna uu ka soconin waxaad ogaataa jirkaaga khaasatan metabolismkaaga dhibaato badan oo ku sugan yahay. Isku day inaad kor u qaado. Marka ku dhahay reverse dieting ku waxa waaye meesha baahi aad isku diri lahayd 200 calories kor u qaad ama 300 calories kor u qaad 2 isbuuc fiiri isbedelka kugu dhacay. Waxa laga yaabaa inaad dhahaysid coach wax macquul ah ma sheegaysid wax waalanaad ka sheekeynaysaa. Hal mid arba inaan ku sheego waxa ogaataa jirkaaga inuu energy gubo wuxuu u baahan yahay energy. Jirkaaga
inuu energy banaanka u saaro wuxuu u baahan yahay energy haddii energy-ga uu banaanka u saari lahaa uu waayo energy-gi uu kaga shaqayn lahaa waxa imaanayso wixii gudaha ku jiray in ay noqoto in la yaryareysto tusaale yar ku siinaa haddii caawa gurigaaga aad u soo hoyato oo aad caruurtaada wax ay cunaan aysan haysanin dabcan cunto yarna aad soo heshay maxaad samayn lahayd cuntadaas yar aad isku dayileed inaad u kala yaryareyso si aysan caruurta kaaga gaajoobin xataa hadday macquul tahayna kisti yareed yaad wax kasii dhigan lahayd jirkaaga markuu gaajo ku jiro ama starvation mode ku jiro wuxuu sameynayaa inta gudahaaga ku jirto wuxuu isku dayayaa inuu ku balance gareeyo dabcan jirku wuu ka ismaadsan yahay weliba ma rabo ina adigu dhimato mana rabo in energy gudahaaga ku jiro uu dhamaado adigu energy gudahaaga ku jiro waxaad u aragtaa inuu caqabad kugu yahay miisaan ahaanna waad u ridaysaa laakiin jirkaaga saas uma arko wuxuu u arkaa in tamar adigu aad haysatid oo lagugu badbaadinayo eeta soo marka wuxuu sameynaa inuu wixii kuu yaryareeyo haddii laakiin energy aad ku shubto wuxuu aaminaa inuu energy soo galayo kan aad bixinaysid ama exercise ku bixi ama wax kala sameey wuu ku ogolaanaa qodobka afraadna isku day inaad muscle dhiso si aad calories u gubto dabcan inaad muscle-kaaga dhistid ama muruqahaaga inay kobcaan iyo mar walba ku xelan tahay jirkaaga calorie badan inuu gubo ama tamar badan inuu gubo maanta muscle-ka ama muruqaha jirka dabcan research-yada laga sameynayo ama dhaqaatiirta intooda badan waxay soo ogaanayaan xataa caafimaadka soo jireenka ah ee nolosha dambe inuu yahay xubinka kaliya ka qayb qaadan karayo muruqahaaga inaad dhistid waxaad ogaataa dhowr shay oo aanan meeshan lagu soo koobi karin ay ka mid tahay xataa gabowga inuu ka hor imaan karayo isku day marka inaad muruqaaga dhistid leano muruqu mar haddii uu dhismo horeyna idinkugu sheegay muruqu waa expensive waxaan ka wadaa jirkaaga markuu muruqo leeyahay muruqo ku filan markuu leeyahay energy gudihiisa ka baxaya ama dhexdiisa ka dhex shaqeynayo xawaaru noqonaa uu badanaa tusaale ahaan haddii aad 600 oo calories oo faada keet hadduu ku yahay kiliyaha kaa bararsan yihiin calooshi kuusan tahay ugu muscle markaa dhisto calorieskaas ku keed gareysan muscle-ka lagu waraabinaa muscle-ka yaa lagu energy ahaan macnaha looga shaqeynaa recovery-giisa sidii loo dhisi lahaa ka shaqeyntiisa soo marka muscle-ka mar walbo waa expensive isku day jirkaaga muruqihiisa inaa awood badan saarto mahama da'daa jirtid 50 sano jir 60 sano jir 70 sano jir 80 sano jir hadba inta karaankaaga iyo awoodaada ah haddii aad rabto marka in aad hawshan si tartiib u bilowdo isku day inaad hoos ka soo bilowdo haddii hore gym aadan u aadi jirin push up-ka iyo pull ups-ka qaasatan midka supported-ka ah oo jilbaha inta meesha la saarto kor la isku qaado kale iyo ka soo bilow isku day si tartiib resistance training-ka qaasatan smith machine-ko kaleete almiitooyinka dhan haddaad ku samayn kartid ku sameey adigu maanta wixii ka dambeeya u kuurgal inaad muruqahaaga dhisto muruqahaaga haddaad dhistidna jirkaago dhan wuu israacaya oo walaalka ku sabriye haddii aad ugu cusubtahay fadlan subscribe dheh tiimkana ku soo biir assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh